walba caqabad ku noqonaya in ummaddii calool wanaagoodii dhaawacaya waana runtii nuur prime minister cusub waxyaabaha uu yidhi already waa uu sameeyey dad xiran buu soo daayey maanta ciidamadii etoobiyaanka xaafada ayuu ka saaray tallaabooyin cadcad ayuu ku dhaqaaqay wuxuu bilaabay process of accountability ayuu bilaabay dadka inuu xisaabtamo bilaabay marka waxaa muhiima marka haddii dhibka jira waxay tahay soomaaliya 18 sano ayay ishaysatay farqi isku dheganayd magaalada baydhabo maalintii waxaa ku dhiman jirtay 500 oo qof waxaa la dhihi jiray the city of death baydhabo jannaay waxaa loo bixiyey magaaladii dhimashada ayaa loo bixiyey xamar madfaca ayaa dugsida lala dhici jiray marka waxaa uu aqliga diidayaa in markii ay bidhaan yar iftay in inta la isku yimaado la hubiyo saysan u demin oo loo shaqeeyo oo dadka u rabaan in lagu noqdo baydhabo jannaydii ahayd oo baydhabo dhimashadii loo bixiyey maxaa yeelay haddii waxaan ay burburaan wax kaloo muuqda male oo aan ahayn in dagaalkii sokay dib loogu noqdo marka maxamed waxaan ku gabagabeynaa waa ku raacsanahay fikirka ah in prime ministeraha jaanis la siiyo laakiin aan hal tallaabo hore u qaadno oon dhahno jaaniska aan siinayno inuu noqdo annagoo ka tanaazulayna wax walba oo caqabo ku noqonaya in waddankii la soo celiyo aan ka iraada midda taa maxamed oo soo laabanayna tiici midda ah ra-iisul wasaare nuur cadde dad badan oo Soomaaliyeed ee siyaasadda Soomaaliya indheeya waxa ay farta ku mudeen in ra-iisul wasaare nuur cadde uusan ahayn siyaasi rogcadaa ah oo Soomaaliya caan ka ah markii loo fiiriyo siyaasadda murugcan ee ka jirta Soomaaliya iyo ishaysigii badnaa ee Soomaaliya ka jiray nuur cadde sidaan sheegnay marka habaacsanaanta dawladda soo kala dhex gashay iminka iyo hirdanka siyaasadeed ee ka jira waddanka Soomaaliya ma laga yaabaa in kooxaha muqaawanadaha ee ku kacsan dawladda federaalka Soomaaliya in uu heshiis la galaa oo markaasi kaga gudbaa dhibaatada hadda ka jirta Soomaaliya waxa iskala tiicay waa mahadsantahay maad runtii dawladdan ku meel gaarka ah runtii hadalka uu walaalka yirinaan in yar maaragtay reference usoo qaato ayadoo maaragtay xamar madfac iyo wax walba ka dhacaya baydhabo dheedkaas uu ka jiro ayaa haddana Soomaaliya gacmaheeda waxay ku gaartay inay tiraahdo waan heshiinay hubkii dhigeen 6 bilood waxa soo gashay janno ah oo awal baydhabo kaliya janno ay ahayd meel walba oo Soomaaliya kamid ah ay janno noqotay laakiin waxa burburiyay ama dhibka keenay waxay ahayd dawladdan ku meel gaarka ah sida aad la socotidna maxaakiimtu meel walba ay la mareen inay heshiis la galaan ayagoo waliba maaragtay awoodii meeshaas ku leh marka taas horta taasaan ka leeyahay ta kale waxaan leeyahay maaragtay nuur cadde runtii dawladdan aanba ku dhisnaynba rogcadaanimo ku dhisnayn sababtoo ah haddaad fiirisid inta memberska ka ah ama wasiirada u ah ama maaragtay laguma soo xulin qualification laguma soo xulin waa wada warlords ay ahaayeen baarlamaanka inta ku jirta dadaan waxba qorin waxbaan akhrina marka maba arkaba dawlad qualification ku timid marka waxaan aaminsanahay nuur cadde right place uu taagan yahay waa meeshii loogu talagalo taagay asaaba ugu roonba marka loo fiiriyo dadka qaar aan aaminsanahay hadallada marka aan ku xukmiyo hadallada uu ku hadlaayo tan kale la heshiinta uu la heshiinayo dadka ka soo horjeeda waxay u baahan tahay action horta mid waxaa jirta aan marnaba aan dood geli karin oo ah first heshiis kasta wuxuu imaanaa oo gogol walba oo hadduu rabo uu ku imaanaa ku xiran yahay in Ethiopia dalka ka baxdo Ethiopia asunaasay dalka ka baxdo I think Soomaaliya weligoodba way dagaalami jireen wayna heshiin jireen geed hoostiisa la fariisan jiray laakiin maaragtay warfarekan in dal kale la isu soo kaxaysto ama cadow Soomaaliya jireen la isku soo kaxaysto haddaa dhinac kale ka fiirsan Ethiopia waa dalka ugu buursan adduunka dunida maanta aan ku noolnahay hand out ku nooshaa iyo macaawimo la siiyo haddaba sidee progress ii gaarsiin kartaa ama horumar ii gaarsiin kartaa dawlad ayadiiba teedii haysato Soomaalida waxay tiraahdaa ninka kabiisa ka talinaysa ninka kabaha ka talinaysa kabiisa la fiiriyo marka hadiiba asagiiba uusan haysanba Ethiopia waan ognahay 2005 waxay dileen wuxuu dilay Mala Sanaawi uu ku shubtay dimuqraadiyadda ay sheegayso uu ku shubtay maxaa la dhahaa booliskii ku shubtay wuxuu dilay almost 130 iyo xoogaa oo hadda ilaa hadda lagu haysto mar dhow administrationkan Bush markuu ka dhaco waxa laga yaabaa handout-kii la siin jiray inuu ka go'do soo haddaba dawlad saas ah horumar ima gaarsiin karto marka taasaan waxaan aaminsanahay kow inay ka baxdo waa stepta koowaad nuur caddana markaas wuxuu gaari karaa horumar weyn oo Soomaaliyeed oo ah inuu Soomaaliya nabad ku soo dabaalo xilligan la joogo Jamaal maxaa ku darsanaysaa waxaan ka yara rabay inaan ka yara taabto horta dhibka Soomaaliya ka taagan waa dhib ay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed
aan qof kale mas-uulka ahayn soomaali ayaa waddankeedii burburisay markaan annaga aan qaadanno marka mas-uuliyadda wixii waddankan ku dhacay markaan qaadanno baan xalka u dhowaanaynaa laakiin intaan meelo kale aan mas-uuliyadda u riixayno dhibkeeda leedahay waddankan soomaali ayaa burburisay halkana waxaa looga fadhiyaa soomaali waxaa kuu soo haray nimankii wadaadada ah oo xamar qabsaday aniga ma qabo nimankii wadaadada oo xamar qabsaday inay janno keeneen markay xamar qabsadeen raggii la hadlay ani waan ku jiray meel walbana waxaa looga sheegaya fikir ah xamar ku ekaada xamar dejiya gogol soomaali xamar ku dhiga bal iska dhaaf inay xamar dejiyaane ilaa jowhar iyo balcad ilaa kismaayo ayay waxay ugu dhaqaaqeen weerar iyo dil markii dambena ilaa ay baydhabo weerareen ayadoo la dhahayo war xabadda joojiya xamar dejiya nabad xamar dhiga dadka la heshiiya raggii u tegey waxaa ka mid ah ninka qoraaga weynka oo soomaalida oo la yidhahdo nuuraddiin faarax oo wada taqaanaan intuu south africa ka tegey ayuu xamar ugu tegey qoraal dheer ayuuna ka qoray oo ku saabsan in ay joojiyaan dagaalka ay nabaddana qaataan wadaadada waa diideen inay nabadda qaataan waxayna dhalisay in maanta inay casmaro fadhiyaan waxay dhalisay nabaddii ay diideen marka ma ahan arrinta haddii arrinta laga dhigo mindi minti ku taag dhibkeeday leedahay dhibkan soomaali ayay u taallaa soomaalina waa inay xal u helaan soomaaliya way shirtay dowlad ku-meel gaara ayay dooratay madaxweyne ayay dooratay speaker of the parliament ayay dooratay prime minister ayay samaysatay in marka institutionkaas yar oo hadda la dhisay within that in xalka lagu raadiyo ayadoo la ogyahay dhib ka jira waaqaca aan ku jirno xaqiiqdiisa aan ognahay hubka faraha ka baxay aan ognahay waddankii qayb dhan baa waxay leedahay inaan go-naan rabnaa waa soomaaliya waay soomaaliya xamar bes ma ahan gaalkacayaa jirta garowaa jirta burcaa jirta hargeysaa jirta kismaayaa jirta gedaa jirta boosaas ayaa jirta somali republic waa ka weyn tahay xamar marka anaga ka hadlayno soomaaliya fishinkeena aqligeenna bes xamar kuma eka waa somali republic xuduudka from jabuuti to kenya ayay daasan yihiin ummaddii marka ummaddan waxaan qabaa aniga in dowladdan jaanis la siiyo waxay keenta la arko soomaalida waxay tidhaahdaa majo dhooqo marba mar baa la bixiyaaye inaan si caqli ku jirto xikmad ku jirto waxaan loo furfuro jamaal aan kaa dhex galay waxaa jirta kooxaha sidaan carab ku dhuftay in kooxaha muqaawanada ay ku kacsan dowladda in ay iyana soo xoogeysanayaan meelo badan baa dagaal ka dhacay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka meel gaarka qaar baa la dilay gobolka hiiraan nin caana ayaa lagu dilay oo dowladda federaalka meel gaarka ka tirsan meelo badan dagaallo ayaa ka jira marka arrintu ma waxaysan u ekeen in markaa dowladdu ay indha adeeg inta samayso oo ay ka hor timaado oo ay tiraahdo waan idinla heshiinayaa waktigiina noo qabta may horta dhib waa jiraa oo waddankii lama odhan karo boqolkiiba boqol gacantuu ku jiraa sidaan hore idinku sheegay soomaaliya waddan xoog badan oo militari aada u dhisan leh bay ahayd militarigeeda waxaa runtii africa dowladaha xagga militariga lagu ammaano ayay u horreysay marka waa inaan xasuusanaa marka militarigaas la ammaani jiray hubkiisii iyo wixiisii oo dhan faraha ayay ka baxeen ummadda shacbiga maatada ayay gacanta u gashay maanta hadda aniga soomaaliya aan tago kan la dhashay ayaa xabad igu dhufanaya qof kale intuusan isoo gaarinin saa wuxuu leeyahay lacag buu haystaa maraykanku ka yimid asaan iyo og asaa idilaya dhacaya ayadoon qof kale ii imaanin marka horta hubkaasoo dhan faraha ayuu ka baxay marka waddanka ma degana meel walba dagaal ayaa ka dhacaysa xabad ayaa dhacaysa broseska marka lagu soo celin lahaa waddankii ayaa hadda lagu jiraa waan ogahay hiiraan in lagu dilay ninkii la taliyay xagga ciidanka beledoogle aanood in xabada ka dhaceen la weerar waa la socdaa meelo badan maxaa yeele waddankii dowladdii ayaa laftigeeda waxay ku jirtaa process ah in xukuumaddii ay hanato law and orderkii iyo securitygii in la hanto ayaa lagu jiraa marka wax oo cajaa'ib ah ee lama noqonayso aniga waddan 17 years ama 18 years hubkiisii iyo resourcekiisii iyo both military hubkii iyo dadkiiba ay faraha ka baxeen aniga ma la cajaa'ibayo wax dhacay laakiin waxaa ka muhiimsan in processkii lagu xakameyn lahaa marxaladahaas aan laga hor imaanin loo ogolaado jans la siiyo la fiiriyo in waxaan la soo celiyo tiicay maxaa kaaga baxaya warka jamaal